بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. waxaynu joognaa maanta waddanka Switzerland khaasatan magaalada Basel meel u jirta 10 kilomitir. meesha waxaa deganaan jiray boqor ka mid ah boqoradii Faransiiska. waa dhul aad iyo aad loo qurux badnaysiiyay weeye. qurux marka aan leeyahay wax shay imika waxyaabaha cusub ku saabsan oo dhan laguma soo darin. wixii dhulka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka soo saaray unba dib la isugu celiyay. hadday noqoto dhagax la qoray, hadday noqoto geed meel lagu dhajiyay, iyo hadday noqoto jaranjaraduba waa waxa weeye gebigoodu wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhulka ka soo saaray way wax wada cusub ma jiraan. iminkana waxaynu geli doonaa meel ka mid ah meelihii uu ku raaxaysan jiray iyadoo oo gud weyn ay tahay haddana xagga dambe aad ka soo baxayso. iminkana waxaynu ka soo baxnay meeshii aan idiin sheegayay iyadoo guduhu aad iyo aad u madow yahay. waxaan xasuustay ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka in badan buu wuxuu ku leeyahay socda oo dhulka ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo eega. allah subxaanahu wa ta'aala cirka in badan buu ka sheekeeyey, dhulku in badan ka sheekeeyey. waxyaabo inaga qarsoon oo jannada iyo cadaabta ka mid ah baa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka sheekeeyey. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaas oo dhan wuxuu uga sheekeynayaa waxa weeye si aynu ugu cibro qaadano, aynu u aragno, aynu u fahanno, aynu khibrad ugu kororsiino. waxaan xasuustay xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ninka ugu dambeeya dadka jannada soo gelaya ayaa iman doona. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku odhan doonaa qofkaas waxaa kuu sugnaatay boqor ka mid ah boqorradii adduunka in uu lahaa iyo iyada oo la taban laabay ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala odhanaya. dhulkan maanta aan joogno inkastoona kaamirad aynaan kaga wada gayoon karin aadna loogu daalayo iyo magaranaysa isagoo dhulku kala hooseeyo ayaabaa haddana waxaan magaranaysa xasuustay qofkaas haddii ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannadii ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu abuuray haddii la siiyo intan in la eegto laabkeeda iyadoo xadiiskuna uu u jeedo magaranaysa dhulka uu boqorku maamulo intana waa intii uu ku raaxaysan jiray keliya. marka walaalayaal meel loo shaqaysto jannada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ugu wanaagsan. meesha yar uu samaystay boqorka magaranaysa Faransiiska aynu iminka joogno ayaa naftaadu waxay dareemaysaa raaxo, magaranaysa waxay dareemaysaa inaad joogtid meel magaranaysa aad iyo aad u wanaagsan. bal ka warrama jannada ilaahay subxaanahu wa ta'aala intan oo la taban laabay haddii ilaahay subxaanahu wa ta'aala inagu siiyo jannada aynu shaqaysanno dhulka ilaahayna aynu marno si aynu u aragno ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwii beeniyey meesha ay ku dambeeyeen. wassalaamu calaykum waraxmat ullah.